السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سودة وذا أدي هذا مهتنتهين ما أنت وتلاذو وارسديدي لباتنك بيش التضباط جولاي سرت كلبضو كن إيو اللحية لباتنك مقال كان وحن ربا إلا ندو كل وذاقو أفيان وهالله وزارة أرمها دبادة إيران أو شيغي إن مريكنكو أوسنغو آمين كرين حلقة إيران أي دقال كليسو إيا حلقة أي نبادة قادانيسو مريكنكونا علادا أو باللابي قاب أو لغها أغلبحو أو لأيهي arrimahaasi waan idinla wadaagayaa ma waxaa jira wada hadal dib u heshiisiin oo mar kale u bilowday Mareykanka iyo waliba Iiraan sidoo kale waan idinla wadaagayaa madaxweyne Trump ayaa maanta aqalka cad waxa uu kula kulmayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu waana markii ugu horeysay oo labada mas'uul ay si foolka fool ah u wada kulmaan markii dagaalka Iiraan uu dib u bilowday ilaa iyo markii madaxweyne Trump uu hadallo kulul ka sheegay Netanyahu madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale aqalka cad kula kulmaya madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky arintana waxay ku soo beegantay waliba labada mas'uulba ay imaanayaan xilli senatarkii hore ee geeriyooday Lindsey Graham maanta la aasayo isla markaana meydkiisa la geeyay Congress-ka halkaasi oo lagu sagootinayo xitaa madaxweyne Trump madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance iyo golaha wasiiradana ay tageen arrimahaasi ayaan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada ku dhawaad muddo 4 maalmood inuu hakad ku jiro duqeyntii Iiraan iyo Mareykanku ay isla beegsanayeen haddaba وفيان وهذا وزارة أرمها دبادة إيران ومليراد إسماعيل باتشاي أيا وحوه لغا ويديي إنay markale wada hadalladii Mareykanka iyo Iiraan ay u dhaxeeyay ay dib u bilowdeen waxaana uu sheegay inay jiraan erayo ay isweydaarsanayaan iyagoo isu marsiinaya wadamada Qatar iyo Pakistan oo markale dhaxdhaxaadin ka dhax wada Mareykanka iyo waliba Iiraan laakiin Ismaaciil Bachai waxa uu yiri Mareykanku go'aanka ma gaarayo mana ogolaanayno in xilliga aan dagaalamayno iyo xilliga aan nabadda qaadanayno taasi inaga ayay naga go'daa ee kama go'do ayuu yiri dowladda Mareykanka maanta waxaan ognahay dagaalkan 5 bilood ayaa u buuxsantay 28 February ayuu bilowday haddana maanta waa 28 July bishii 6 ayaa dagaalkan bari u bilaabanaysa sidaas darteed afayeen ku hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu yiri dagaalkan markii Israa'iil iyo Mareykanku ay bilaabayeen waxay istahayeen 3 maalmood ayuu socon doonaa kadibna Iiraan waa ay isdhiibi doontaa laakiin hadda waxa uu yiri muddo 5 bilood ayuu dagaalku socdaa wada ay uga baxaana waa ay la yihiin sidaas darteed waxa uu yiri anaga muhiimadeena waxay tahay ammaankeena qaranka in aan eegano waxa uu yiri waqtiga aan nabadda qaadanayno iyo waqtiga aan dagaalamayno arintaasi inaga ayay naga go'daa laakiin waxa uu sheegay xaaladan ay sababeen Israa'iil iyo Mareykanku iyaga ayaa ay ku daba dheeraatay laakiin waxa uu sheegay in anagu markastaba go'aankeena aan qaadanayno dagaalkan intii uu rabo ha socdo waxa uu sheegay 28 markii dagaalkan uu bilaabmay April 8 inay qasab ku noqotay Mareykanku xabad joojin inay qaataan 40 maalmood markii uu dagaalku socday haddana waxa uu sheegay iyaga ayaa ku qasbanaaday in heshiis isfaham ay saxiixaan 17 bishii June ee la soo dhaafay hadda waxa uu yiri 5 bilood ayuu dagaal ku socdaa wada ay uga baxaana waa ay la yihiin isla markaana waxa uu sheegay Iiraan marnaba looma yeerin karo xilliga ay dagaalamayso iyo waliba xilliga ay nabadda qaadanayso America thought Iran will collapse in 3 days and will surrender now after months America is now stuck in this place and they are proud of the crimes which means they are stuck and they are struggling the Americans are struggling in their current situation they have caused this they have done this and now they are stuck we in Iran we don't care about the worries of America what is important for us is the Iranian national interest. hadalkan afayeen ku hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu ku soo beegmay xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu ku sugan yahay Washington DC isla markaana aqalka cad uu kula kulmayo madaxweyne Trump waa markii ugu horeysay labadan mas'uul ay si foolka fool ah ay u kulmaan ilaa iyo markii dagaalkan labaad uu mar kale dib u bilaabmay
dagaalkan dib u bilaabmay oo Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay hadda 13 habeen oo isku xigta ayaa labada dhinac ay isduqeynayeen laakiin hadda 3 habeen ee la soo dhaafay wax duqeyna ma aysan jirin marka Israa'iil wajigan labaad ee Mareykanka qayb ma aysan ka ahayn Iiraan oo la dagaalamayay madaxweyne Trumpna waxa uu yiri Israa'iil ma doonayno inay qayb ka sii ahaato dagaalkan waxaan ognahay markii heshiiska isfahamka la saxeexay in Netanyahu iyo Trump ay isku dhaceen maxaa yeelay koonfurta Lubnaan ayaa Israa'iil ay galeen isla markaana duqeyn ay ku wadeen Lubnaan heshiiska isfahamka oo labada dhinac ay kala saxeexdeen Iiraan iyo Mareykankana qodobka koobaad waxa uu ahaa in colaadda dhinac kasta laga joojiyo Lubnaan ay ku jirto Trump waa kii yiri haddii anaga aan ahaan lahayn Israa'iil ma aysan jiri lahayn adduunka dhanna waa laga nacay Netanyahu uu ku yiri haddii aniga aan ahaan lahayn xilligan xabsi ayaa ku jiri lahayd madaxweyne ku-xigeenku waa kii dhowr jeer arintaasi sidoo kale si weyn u weeraray dowladda Israa'iil oo yiri 7 milyan ayaa tihiin sidaas darteed ma ahan colaad kasta inaad dagaal ku xalisaan waxa yiri sheekada wax ka bedela marka waa markii ugu horeysay si foolka foola ay u wada kulmayaan isla markaana xiriirkoodu ma uusan wanaagsaneyn qadka telefoonka ayayna ku wada hadlayeen waxa la leeyahay Netanyahu waxa uu hadda Trump ku cadaadinayaa in goob nuclear ah oo Big Axe la yiraahdo oo buur ku taala 100 mitir dhulka hoostiisa oo loo maleynayo Iiraan in hubkeedii nuclearka ay ku horumarinayso isla markaana ay qarka u saaran tahay waxyaabaha qarxiya ee centrifugeska la yiraahdo inay ku sameeyso in Mareykanku uu weeraro Trump saaka isagoo Fox News la hadlay waxa uu yiri uma baahni in Netanyahu oo arintaasi noo sheego maxaa yeelay satellaadyadeenna ayaa dhaqdhaqaaqa dowladda Iiraan wax kasta oo ay sameeynaysa la socdo marka waxa la leeyahay arintaasi ayaa Netanyahu u yimid arinta Lubnaan sidoo kale kama marna Syria kama marna waxaana sidoo kale ay Israa'iil isku diyaarinaysaa ay doonaysaa inay mar kale weerarto dalka Iiraan oo hadda maalmihii u dambeeyay waxa la dhahay dadka goobaha sheltarada oo gabaadka ay ka dhiganayaan ayaa la tusay marka arintaasina sidoo kale waa ay jirtaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ognahay bishan bilowgeedii in Trump iyo isagu ay shirkii isbahaysiga NATO oo ka dhacay Ankara ay ku wada kulmeen ayaa haddana isaguna aqalka cad maanta kula kulmaya madaxweyne Trump waa mas'uuliyiintan waa markii saddexaad oo muddo 2 bilood gudahooda ay kulmaan bishii June sidoo kale shirkii G7 oo Faransiis ka dhacay ay ku kulmeen Trump waxa uu isku dayay dagaalka Ukraine iyo Ruushka in uu xal u keeno intii ololaha doorashada uu ku jiray waa kii yiri 24 saac iguma qaadanaysa laakiin hadda 2 sano ayay ku sii dhowdahay welina xal waa u laayahay marka booqashada Netanyahu iyo Zelensky labaduba waxay ku soo beegantay xilli maanta aas loo sameeynayo senator Lindsey Graham oo horaantii bishan si lama filaan ah u geeriyooday 48 saac kadib markii dalka Ukraine uu ka soo laabtay oo madaxweynaha Ukraine uu la soo kulmay meydkiisa maanta waxaa la keenay xarunta Congress-ka halkaasi oo lagu sagootinayay xildhibaanada madaxweyne Trump waa uu tagay madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance golaha wasiirada xitaa Zelensky iyo Netanyahu iyaguna waa ay sagootinayaan maxaa yeelay Lindsey Graham waxa uu ololeynayay in Iiraan la weeraro Israa'iil ayuu taageero buuxda u muujinayay sidoo kale dhinaca Ukraine waxa uu doonayay in Mareykanku uu taageero Ukraine dagaalka ay kula jirto Ruushka marka maadaama saaxiib uu la ahaa Netanyahu iyo waliba Zelensky labaduba marka maanta ayaa booqashadooda ay ku soo beegantay xilli isagana la aasayo oo meydkiisa uu yaala xarunta Congress-ka halkaasi oo sagootintii ugu dambeysay lagu sagootinayo waxaan ognahay markii Ukraine uu ka soo laabtay in xidid wadnaha dhiigga siiyo oo dilaacay dhiig fara badan uu beerdareeyay si lama filaanana markii isbitaalka la geeyay uu ku geeriyooday xitaa loo maleynayay in la sameeyo FBI-du ay gurigiisa ay baaritaan ku sameeyeen marka kulay Netanyahu iyo Trump markay kulmaan kadib shirkooda jaraa'id oo ay qabanayaan waxyaabaha ka soo kordho waa dila socodsiin doona laakiin waxa uu Trump yiri aniga iyo Netanyahu hadda hal dhinac ayaan ka nahay dagaalka Iiraan aan kula jirno marka sidoo kalena waxay doonayaan cunaqabatayna dheeraada in Iiraan lagu soo rogo hadda go'doomintii waa ay saarantahay Iiraan si dhaqaalaheeda loo xanibo marka waan arki doonaa sidoo kalena waxyaabaha ka soo baxa laakiin labada mas'uul Trump aqalka cad ayuu kula kulmaya midka Ukraine iyo midka sidoo kalena Israa'iil waxyaabaha ka soo baxa waa dila socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo